booqasho safar shaqo ayaan tegaynay gobolka Gabiley waxaan doonaynaa inaan isku marno magaalooyinka Arabsiyo Gabiley iyo Togwa Jaale waxaan ahaydun laba qodob oo ugu waaweyn baan tegaynay qodob waxa weeyaan inaan la soo kulanno dhibaanadayadii iyo taageerayaashayadii xisbiga oo aan ka soo wada tashano structure-kii xisbiga oo aan dib ugu habeen ku sameeynay muddo 3 bilood ka hor ayaan hogaankii xisbiga ka hayay Gabiley aan kala dirnay marka wax gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen iyo xoghayn iyo wax nooga jira muujin waxaan doonaynaa dib u soo habayno dib u sameeyno oo aniga hore u kala dirnay kaasi waa qodob aan doonaynaa ka soo shaqeyno qodobka labaadna wuxuu ahaa in golihii dhexe boqolkii dhinacayga ahaa aan ka soo bilowno oo processkii soo bilowno ayuu ahaa oo aanu doonaynay inaan golahayagii dhexe iyo wixii aan dhisno weliba dhinacii boqolkayga ahaa aan hore ugu ballan qaaday reer Gabiley in marka processka aan bilaabayno aan ka bilaabi doono magaalada Gabiley safarkaas safar shaqo buu ahaa anagu weli campaign maana gaadhin campaign kuma jirno sidaan u soconaa laga gartaa inaan campaign ku jirin laakiin iyada xukuumaddu waa tii campaign-kii isku qasaysay iyo qalin jabinta muddo 4 bilood iyo badh iyo reer Gabiley sugayay in ay qalin jabinta madaxweynuhu kala qayb galo waa ayaan daro in markii aan anaguna isla tag reer Gabiley aanu u tagnaa xisbigayga ka shaqeynaa in maantana lagu xanibay controlkii caabuda markii laga galayay degmada Arabsiyo yaa ka dambeeyay beel ladii ku xanibaadii waxaan laga dambeeyay askartu waxay amar baan haysanaa amarkaana waan ognahay oo madaxtooyada meel ka sokaysa ma jirto oo go'aankaas uu ka tirsan yahay aka jugleyntan maanta waxa laga sameeyay ku ah Soomaaliland waa markii ugu horeysay ee Soomaaliland ay waxaan oo kala ka dhacaan markii ugu horeysay ee Soomaaliland iyadoo xisbi qaran oo dastuurku siiyay qaran in ay noqdaan macaarid laga mamnuuco shaqadoodii ay qabsan lahaayeen xukuumaddu waxay doonaysaa inuu noqdo one xisbi party ay dalkan doonayaan inay noqoto dimuqraadiyaddii bay doonaysaa inay afduubto saxafiyiintii ayaa shalay tolo arkayay si dhulka loo jiijiidayay 4 saxafiyiin shalay tolo la xiray waxaan ognahay ilaa intii ay xukuumaddani jirtay wixii ay Soomaaliland ku haysay xuquuqul insaanka dadka la iska xirayo nabadgelyadii oo sii xumaatay maantana waxay u soo dhigatay saxaafadii iyo xisbiyadii qarankii maamulka gobolka Gabiley ma iska aragteen ma ka wada waxaan iska aragnaa wadaad aragnimada halka ku xidhan baan nahay ma la xidhiidhan iyaga waxaan kala xidhiidhnaa askartii haddii loo sii sheegay oo amar la soo siiyey waxaad kala xidhiidhi okay idinka marka maxay imikeedii qorshaysay anaga waxaan noo qorshaysay halkaasaan joogaynaa waan ka mudaharaadaynaa Soomaaliland oo dhammaan doonaa halkan noogu timaado waxa weeyaan waxa halkan ka dhacay waxun baa ka dhacay waxa weeyaan maanta waxaan u bilaabaynaa waa wax ugabinagu ah waa wax haddii aynu u sii ogolaanno maanta oo ayna dabarka qaban qofka dictatorka ah waxa lagu gartaa markuu wax sameeyo ay dadku joojin waayaan uu sii wada shalay todobaadkii airportka ayada weeyeen iyadoo si cadaan loo arkayay oo miliyo arkayay oo wax walba arkayay ayay xukuumad inda adag intay soo istaagtay TV-gi ay tilmaanaga anagu ma isaga loo soo sheegay war waxaani wax dee wadal ka shaqeynaya maaha wana ayaan daro anagu waxaan bilaabaynaa maanta laga bilaabo mucaaradadii kulmiye lagu yaqaanay teedii umar tusayna intii hore waan maartay waan habranaynay waxaan saybiloorta ka yiri daaya shicibkan u naxaynay waan u naxaynaa shicibkayaga weli laakiin shicibkayaga waxaan u sheegaynaa haddii aanaynan qaban maanta annaga xilxigaan noo igmatiin waxa weeye dawladda la qabto waxa xunta ay sheegaysaa jirto qabyaaladii xidhistii sharcigii oo lagu tunto ba sharciga xagee kaga jirtaa in xisbi qaran oo hawshiisii qabsanaya in laga mamnuuco waxa weeyaan waa ayaan daro mana ogolaanayno iminkana waxaan bilaabi doonaa abaabul mudaharaad weyn oo dalka ka dhaca oo magaalada ka dhaca